Salaam alaikum, family and friends. Selayhem fiican yahay. I know inay daawadaan dad oo family ah, dad oo friends ah. Mashallah. I appreciate all of you guys. Alhamdulillah. Ba maanta waxaa usoo galay inaan ka hadlo New Year-ka, inshallah. New Year-ka Ilaahay ha nooga dhigo 2025 sanad oo sanadadii hore ka fiican oo ka tayo badan inshallah. Markay noqoto diinteena maxay doole nolosheena maxay doole horumarkeena ilmaheena inshallah in uu nooga dhigo ilmo oo hadaysan oo alxamdulillah maxay doole diintooda haysto oo yaqaano oo alxamdulillah maasha allah inkastoo ay yihiin ilmaheena ilmo oo hadaayad leh oo fiican oo waalidkooda respect u hayo haddana inuu ilaahay noo sii siyaadiyo ayaa adduunyada ugu jecelahay insha allah wixii oo kala tegay ama naag ama nin oo kala tegay inuu ilaahay noloshooda isugu fududeeyo maadaama ay kala tageen maaha macnaheeda in ay u kala dhamaatay dadkaas because dad ilmo iskule abidkood ma kala dhamaanayaan so inay isfahmaan ama inay ilaahay uu easier uga dhigo sidii ay iskula hadli lahaayeen ama ilmahooda taladooda adduunyada in the futurekooda ay u samaysan lahayn maadaama ayaga iswaayeen not inay ilmihii ad iswaayaan so insha allah ilaahay waxaan ka baryayaa sanad oo wanaagsan oo familiyada ay isku soo dhawaadaan ilmahooda maadaama noqoto dhaqankooda diintooda iyo waxaas iyo waalid ana caasiyaan noqonin oo waalid ay noqdaan dad oo fiican maadaama oo aniga always aan ku talo jiro inaan ilmo aan aniga dhalay aanu noqonin waalid caasi oo uu noqdo ilmo oo waalidkood u hanuunsan maxay toole dadka oo kala tagana aanay ahayn noloshooda inay meesha ku dhamaatay oo aanay isla hadli karin waa inay labadii waalid ilaahay uu fahansiiyo inay isla hadli karaan just ilmaha daraadood maadaama ilmo laysku haysto ma aha waan kala tagnay weligan ma isla hadlayni waan kala tagnay dan ma isla qabsanayni waan kala tagnay ma isla hadli karni yes waan kala tagnay laakiin ilmahaas ku haysanaa ilmaheeni dantooda inaan ka shaqeyno waaye ilaahay waxaan ka baryayaa intii oon fahansanayna inuu ilaahay fahansiiyo intii fahansanna ilaahay uu sii siyaadiyo insha allah and we do better all of us in the future ilmo oo wadan lagu korinayo gaalo waxa weeyaan waxay u baahan yihiin dadaal badan dadaal ilaa iyo xad ah oo dadka ay isugu fiirsadaan especially dadkeena soomaalida ay isugu fiirsadaan ayay u baahan yihiin hooyo keliyana ilmo may dhalin hooyada waa inuu ilmaha lala ogaado lala caawiyo waxa maaragtay ay tahayna haddii aan lagula caawinina hooyadaas ay og tahay in oo waxay samayn karto ay samayso wixii kalena ay u dhaaftay ilaahay daraadii naad inoo laysku qaliyo naad inoo laysku buuqo naad oo inuu waxaas oo dhan laysku sameeyo marka waxaan leeyahay gabdho haddii oo qofkii ilmaha kula dhalay aanu rabin inuu kula caawiyo ama aanu rabin wax kula sameeyo hala murmin hala qaylin hala waxayn just hadalka dhanjar ilmahaaga u xidho caloosha insha allah ilaahayna hakaa ilaa aniga hooyo waxaan hay oo maogtahay single mother ah oo ilmo keligeed korsanayso maadaama aan saa wadanahay gabdhaheena soomaalida weliba ama wiilasheena soomaalida oo single parentiga ah kulligiin insha allah ilaahay ha idinla garab galo way adag tahay waa hawl adag but laakiin in the end waxaan ku dhahayaa weliga waalidka kale oo maqan oo absentiga ah ha kala hadlin ilmahaaga siday u dhacdaba ha kala hadlin siday u dhacdaba waxaa dhahda aabahaa waaye ama hooyadaa waaye hooyadaa waaye aabahaa waaye daaset wax kale oo aad adiga ku leedahay male ilmahaas caqli u leeyahay ilmahaas isagaa arkaya qofkaas wuxuu yahay ama qofkaas meeshuu taagan yahay weliga ha isku darin ilmahaaga iyo aabahood ilmahaaga iyo hooyadood adigaana ogaan doona taas waxaan u leeyahay waxaa weeyaan experience guys insha allah ilaahay nolosha ha idinla qabto nolol adag waaye kulligeena ha idinla qabto
and maxay tole I hope you guys understand. insha allah ilaahay waxaan weydiisanayaa sanadkii hore ka fiican kana wanaagsan insha allah inuu nolosha inooga dhigo oo adduunyada aan ku marno raaxo iyo wanaag iyo maxay tole dhibli insha allah aakhiradeenana ilaahay uu ka dhigo dad oo maaragtay ehlu janno ah insha allah inaga ilmiheenaba may Allah protect us, may Allah protect our kids, may Allah protect our futures inshallah. Love you guys. Happy New Year. Bye.